السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلامي دمانتينا ميلو بعد جوجتان كسو دوادا muuqaalka maanta kan waxyar aan iska fogeyno islam gacmuhu ku hadlaa bijibku dhaca hadhoode. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلامي دمانتينا ميلو بعد جوجتان كسو دوادا muuqaalka maanta waa top macnaha waa muuqaal oo la yaab leh waxyaabo la yaab leh oo dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka waagaas dumarka mamnuuc ka ahaa waxyaabo dumarka mamnuuc ka ahaa oo maantana iska noqday wax oo caadi ah waxyaabo waagaas hore loo ogoleen dumarka wadamadan reer galbeedka iyo Mareykanka iyo kuwa gaalada maaragtay waagi hore waxay caburin jireen dumarka iyagoo oo u diidi jiray sameynta waxyaabo oo caadi iska ah maanta waxyaabo kamid ah xuquuqdooda macnaha dumarka looma ogoleen xuquuqdooda dhameystiran mana lahayn waagaas ra'yi على أي حال sheekada aan sii dheereenin muuqaalka wuxuu noqon doonaa waxyaabo waagaas dumarka mamnuuc ka ahaa laakiin maanta uu noqday wax oo caadi ah daawasho wacan. maanta qof walba ayaa awood u leh in uu siiyo codkiisa siyaasiga uu rabo macnaha siyaasigan uu soo sharaxay hadii aad ka heshay codkaada ama hadii waxyaabaha uu soo bandhigi doono hadii aad ka heshay codkaada waan sii kartaa laakiin muddo dheer ka hor xaalka sidaas ma ahayn dalka Mareykanka waagaas ama waagi hore looma ogoleen dumarka in ay codkooda siiyaan siyaasiyiinta qof siyaasiga soo sharaxay dumarkan shaqo kuma lahan inay codkooda siiyaan inay doortaan shaqo kuma lahan waxay ka ahayd waxaas mamnuuc marka wax ka bedelkii dastuurka Mareykanka 19aad ayaa dumarka u ogolaaday in ay codkooda bixin karaan in ay xaq u leeyihiin codkooda siyaasiga ay rabaan inay siiyaan laakiin muddo kadib ayaa la horgeliyay go'aankaas taariikhdana waxay ahayd 1920 wax badan xataa kama soo wareeganin waa 100 sano mid kale qaanuunkaas inuu hergelo dumar badan ayaa u soo halgamay dumarkaasna waxaa kamid ah Susan Anthony iyo Elizabeth Cady maanta dumarka xorriyad weyn ay haystaan xorriyad buuxdo khaasatan marka laga hadlaayo daawooyinka dhalmada joojiyo ama daawooyinka dhalmada diido si ay u nidaamiyaan qoyskooda mowduucan wuxuu ka hadlaa Yurubta iyo galbeedka dhalmada iyo waxyaabo sheeko dheer hana gelinina يوروبان كهاتلونا على أي حال حرية داس واجي هره مجرين ما لهن حرية داس دمر كرير قلبتك وحكوا أتكان جرتي إن أي نظاميان قويسك سيدا عرورتا تردود أوكله واجي هره هذا قفل 11 سنة جرأة يوروب هذا كو أركتب صدح أفرشان ولا له خبر لح تضو ستيت سيدا أفريقيا أوكله لكن لما يرى هذا أركتب ما يخاف كلنا التهال الله بكبضن صدح لفوا أنا أركتب تاسنو حكينتي واجي هره ضدك way iska dhali jireen ma jirin wax uurka celinaayo iyo indraash xaq buu uma lahayn inay isticmaalaan dumarka waxyaabahaas xitaa sida taariikhda sheegayso yani xaq uma lahayn inay ogaadaan xataa macluumaad ku saabsan uurka bishii meeqay ku jirtaa bishii toddobaad may ku jirtaa bishii sagaalaad may ku jirtaa dhalmada goorme waxaas ma jirin taasna waxay ahayd dalka Mareykanka lama ogoleen inay qaataan kaniiniga dhalmada celiyo dhalmada uurka celiyo ilaa laga soo gaaro 1960 waxay ka horeeyay waxaas ma jirin sanadka markuu ahaa 1916 gabar la yiraahdo Margaret ayaa waxay furatay rug caafimaad dalka Yurub gudahiisa magaalo kamid ah magaalooyinka Mareykanka Margaret waxay qaabili jirtay haweenka oo uur leh ama uurka iska celin rabo ama waxyaabahaas laakiin maalmo kadib ala tool xabsi la geeyay waa la qabtay maxaa yeelay waagaas xaq uma lahayn waxyaabahaas dadkaas dumarka waxyaabahaas xaq uma lahayn meesha ay furatay 9 maalmood kadib waa loo imaaday waa la xiray meesha dhanba خلاص laakiin Margaret inkastoo oo la xiray marnaba yani kama istaagin inay u doodo dumarka xuquuqdooda mar walba waxay u doodo jirtay dumarka iyo xuquuqdooda iyo yani ayaga xorriyad u leh ayaga xaq u leh inay uur qaadaan iyo inay uur qaadi kareen inay kaniin isticmaalaan iyo kaniin isticmaal waxyaabahaas ay u doodi jirtay mar walba ugu dambeyn aday 1960 meel ayaa khalaas xorriyad la siiyay inay uur qaadi karaan iyo in ay uurka iska diidi karaan iyo waxyaabahaas markaas ayaa loo ogolaaday socda yalla
dhala laakiin saas ay tahay caqliga uu dhalooyin hadda laba ka badan ma dhalaan hadda dalka Mareykanka waagii hore furiinka aad ayuu u adkaa khaasatan dumar hadda gaaladan hadda Yurubta iyo galbeedka iyo kuwaan maaragtay hadda dumarku way furi kartaa sharci goot way dumarku way ku furi kartaa adina waa furi kartaa ani ma aqaani systemkood laakiin waxaa jiro dumarka inay ku furi karaan adigana aad furi kartid ma ogisay ku heshiiyaan waa sheeko dheer maanta laakiin waagii hore ma jirin waxaas dumarka xaq buu uma lahayn xataa inay furiin inay dalbato xataa ma jirin waagaas Mareykanka wuxuu ku koobnaa yani maamul kastana wuxuu lahaa sharci khaas u ah gaar u ah xitaa maamulada qaar waxaa ka jiray qofka ragga ah meeqa mar ayuu xaq u leeyahay inuu xaaskiisa inuu jirdilo intuusan furin ka waran taas ayaa ka jirtay gaaladan agtood maamulada qaarna furiinka ma bajirin wax furiin la dhahay ma jirto khalaas hal mar haddii aday nakaxtu hadda dhahdid khalaas forever xaaskaada ay noqonay weligeed sharcigaasna waxaa ka jiray maamulka South Carolina maanta dukaan hadday gashid yani qayb badan arkay qaybta dumarka qaybta ragga iyo qaybta caruurta dhinac u dhig mawduuceeni maahan qaybta dumarka waagi maanta wax walba ayaad ka heli kartaa wax walba wixii ragga gashanaayo dumarka way gashan karaan laakiin xooga waa la qurxiyay ubax iyo waxaasa lagu sameeyay iyo kalar oo ayaga khaas u ah kalaraa jiro hadda ragga haddii gashto waxaa kalarka oo dumarka laakiin waagaas ma jirin waxaas dumarka waxay lahaayeen dhar hal nooc ah surwaalka mamnuuc ayuu ka ahaa dumarka surwaal ma xirin jirin ceeb weyn ay ahayd maanta haddii la dhahaa wadamada reer galbeedka waxay mamnuuceen dumarka inay surwaal xirtaan waa wax la yaab leh laakiin taas way jirtay maanta wixii ay rabaan ay xiran karaan haddii kuleelaha jirona Allah yustur qarnigii 19aad ilaa iyo qarnigii 20aad maamulada dalka Mareykanka waxaa ka jiray in dumarka ay xiran karin surwaalada dumarka inay xirtaan mamnuuc ay ahayd maxaa yeelay yani khaawnaan surwaalka dumar inay xirtaan waxay ahayd waa ayadoo khaawan oo kale hadda ka hor waxaan arkay muuqaal dalka oo Ingiriiska muuqaalkaas waxaa la duubay 50 sano ka hor ayaa waxaa la tusaayay dhar khaawan yani dhar oo jirka qofka hadduu xirto jirkiisa banaanka soo dhigayo marka dumarkaas way la yaabanaayeen dharkan yaa xiranayo ma laga yaabo inaan xirto dharkan laakiin maanta dharkii adduunka dhan ayuu yaalaa meel kasta ayuu taxan yahay dumarkiina way isbedeleen khalaas dharkaas leebel xirtaa hadda wax asturan malahan laakiin maamulada dalka Mareykankan dhahnay waxaas kama jirin waagaas surwaalka oo caadiga surwaal ah ayaa dumarka inay xirtaan mamnuuc ahayd xitaa waxaa jirtay dumarka inay u labistaan sida ragga oo kale surwaal iyo shaati finaanad ma jirto fustaan maxaa la dirac cambuur fustaan af carabi aan ku aqaana waxaasay xiran jireen ma jirin waxaan oo finaanad iyo shaati finaanad iyo waxaas ragga u daa waxaas ayaa ka jiray laakiin arintan waxay bilaabatay qarnigii 20aad bilowgiisa marka oo shirkadaha qaar ay bilaaween in ay soo naqshadeeyaan surwaalo oo gaar u ah dumarka surwaalkii raggii ayaa la soo qaatay ubax iyo waxaas ayaa lagu soo sameeyay waa la soo bandhigay raggii way diideen inay xirtaan inay gataan marka yaa gashanayo dumarka khalaas waxa la kuwan dumarka waay sidii ay suuq ku soo galeen dumarka iyo ciidannimada mararka qaar waxaa jiro wax la isku forjeeyo dumar haddii ama wax oo social media aad ku aragtid dumarka haddii ay xarbiga ama ciidannimada ka qayb galaan ma dagaalamayaan mise cadowga way u naxariisanayaan kuwa qaar waxay soo qoraan kommentiyada qaar waa fani waxay taagan yihiin qoray wadataa mid qurxanay arkee maskiinkan ma dili karaa iska dhaaf alla kan ama inkaara haddaan dilo yani naxariis ayaa galayso dumarka way naxariis badan yihiin marka waxaa lagu forjeeyaa kuma fiicno in ay يعني ciidannimada ka qayb galaan waagii hore dumarka ciidannimada way ka qayb gali jireen way la shaqeyn jireen ciidamada laakiin qori ma qaadan jirin taasna waa sida taariikhda sheegayso ciidanka ka soo qayb gal laakiin hoolaha ciidanka faraha gashanin macnaha taasna waxay ku cadeynayaan waxay ahaayeen ciidanka markuu soo dhaawaca raggii markuu soo dhaawaca in ay faashada iyo madreesh wax u xirxirta gacmaha cuntooyinka u diyaariyaan biyaha waxyaabahaas sida taariikhda sheegayso haddii ay
ka qayb galaan ciidanimada ama waxyaabaha ragga qabto haddii ay qabtaan lacagtood yani taas looma xisaabin jirin. waxaa loo xisaabin jiray kalkaalinsinimada ay ciidanimada ka ahayd iyo cuntada diyaariska iyo waxyaabahaas. laakiin hooshii ragga qabanaya ayaan qabtay, taas lacag laguma siin jirin. marka 1992 dagaalka labaad adduunka markaa lagu jiray shaarboolahii inta dadka markuu nafta u keenay maaragtay dadka laisku kacsanaa, markaas ayaa loo baahday dumarka. raggii khalaas way dhammaadeen, wuu gubooyaa ninkan, waxaa leeyahay khalaas dumar kaaliyan caawina. markaas ayaa dumarka la ciidameeyey, laakiin waxaa loo dhiibay xilal oo toos ula xiriirin dagaalka. 1948 khalaas waxaa lahay friya tihiin, yani khalaas waa loo ogolaaday in ay ciidanimada ka qayb galaan, xataa wadanka dibadiisa in ay kasoo shaqeeyaan ayagoo ciidan ah. khalaas askari waay. dalka Mareykanka waagii hore shaqooyinka dumarka looma ogoleen, macnaha ma ogoleen inay dumarka ay shaqeeyaan. gobolada qaarna yani way ogolaayeen, balse saacadooyin 4 saacadood 5 saacadood, maamulkaas 6 saacadood 7 saacadood. ma jirin haweeney ama gabar full time shaqeynayso, way yareed. looma ogoleen, ma rabin inay dumar ay shaqeeyaan, ma rabin. qaanuunkaas waxaa la dejiyey kadib markii maxkamadda sare loo gudbiyey qadiyad la xiriirto dumarka shaqeynaya wax ka badan 10 saacadood. sanadka 1908 sidoo kale waxaa jiray qaanuun inay 10 saacadood ka badan ay shaqeyn kareen. khalaas okay, ilaa 10 aan soo gaarteen, 3 4 5 okay, ilaa 10 ayaa la siiyey. 10 ka badan ma shaqeyn karaan. qaanuunkaas ayaa jiray 1908. laakiin maanta adduunku wuu isbedelay. dumar iyo rag maanta reer galbeedka waxay ka dhigeen isku mid. sidoo kale muuqaalka wuu dheeraaday. sidoo kale waxaa jiray baasaboorka inay qaadan karin dumarka waagaas. taasna waxay ahayd 1937 waxay ka horeeyo. sheeko dheer, waxyaabo kulli macquul ahayn waay, la yaab leh. waan daalay, muuqaalkana wuu dheeraaday. marka khalaas waan soo koobay, qaybtan ugu dambaysa waan soo koobay. baasaboorka looma ogoleen 1937 waxay ka horeeyay. dumarka looma ogoleen inay baasaboor qaataan, khaasatan kuwa la qabo. muuqaalka intaasuu ahaa. waxaan rajeynayaa inaad ka heshay. haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada ama u sheergareey. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam. sheergareey saaxib.